ورسونا وانا داوديال عاوة سياسة الصومالية وجه عصب أيالتي جماهير عصب أيا بنانك أصو بحدي أو إسعديي وأيلا دوانا إنتي جيران يا إنتي جيران للهاي أود عصب أو أن لديال سكرين أيا بنانك أصو بحدي عاو سيال سياسي أيا وحي صحيحين عاو ninkii ay dhisi lahaayeen awood maal iyo maskax ay isugu gey lahaayeen oo ay madaxweynaha Soomaaliya ka dhigi lahaayeen horta raggan waa rag wada caan dhalay ah siyaasadda dhexdeedana ka muuqda oo baawar la yaqaan ku leh ninka ay dhisayaan nin liita ma aha asiga naftiisa laakiin rag lagu jahawareersanaay meesha ay u socdaan ama reerka ay ku daba fayli doonaan ama ay dhisi doonaan ayaa caawa meel aan la malaysanaynin ka soo baxay horta marka hore waxaan dul istaagayaa sagaalka siyaasi iyo ninka ay dhisayaan magacyadooda teetalada ay kala leeyihiin dabadeedna waxaan isweydiinaynaa ma jiraa caawa raggan isku biiray dartood siyaasi u agoontoobay ama garabkiisa go'ay la dhihi karo ama garabkiisa bannaanaaday la dhihi karo ma jira mase ay tahay guul dad u soo hoyatay maadaama rag lagu jahawareersanaa ay bannaanka u soo baxeen sidoo kaleetood meesha raggaasu ay baawarka ka muujiyeen Siciid Cabdullaahi Dani iyo tiimkiisa ku xigana oo ayagana bannaanka la soo dhigi rabo waa idin sii hormarinayaa waa idin la wadaagayaa ayagana bal miisaanka ay leeyihiin iyo raggaas waxa aad ku xusuusataan ila wadaaga ayagana balse aan ka dhamaado tiimkan horta intaana dul istaagin waxaan si xusmad leh kaaga codsanayaa muuqaalka intaad qabato iga sheergaray lee ku qabo page-kayga waan garaa Nuur Xuseen falow ku soo qabo channel-kayga YouTube Ahmaal Media subscribe dhac ku dhagan balaalka furo si aad u noqoto daawadaha ugu horeey war soo dhawaada mar kale iyo isku soo naqad wanaagsan waan garaa Nuur Xuseen afayeenkii bulshada oo idin loo diyaar garooba ambaqaadka geediga muuqaalkeena cusub waxaa la yiri waxa isqaatay go'aamadan soo socda mudane Cabdi Faarax Shirdoon saacid ra'iisul wasaare hore gudoomiyaha ururka nagaad kow ii dhowrta wuxuu soo noqday ra'iisul wasaare hore oo dalka haddana wuxuu ka mid yahay xisbiga samata bixinta walow aan maqlay maalmaha dhawaay reerkiisa ku dhagay oo raggaa ka har ayaa la yiri waa gartay ninka labaad mudane Cabdikariin Xuseen Guuleed gudoomiyaha xisbiga sahan wataqaanaa ninkaas madaxweyne maamulka galmudug ayuu soo maray wasiir ayuu soo maray xilal badan ayuu dalka ka soo qabtay waa ninka labaad rag waaweynaa soo socda ninka saddexaad mudane Cabdirasaaq Khaliif Axmed waa gudoomiyihii xisbiga wadani ee maamulka Somaliland
ahayna guddoomiyihii baarlamaanka maamulka somalilan haddana soo naqday musharax madaxweyne waqooyi bari soomaaliya cabdirasaaq khaliif axmed guddoomiyaha golaha midnimo ayaa lagu sheegay inuu yahay lambarka afaraad waxaa la yidhaahdaa mudane cabdi aadan hoosow guddoomiyaha xisbiga midnimada dimuquraadiyadda horumarinta dimuquraadiyadda midnimada soomaaliyeed baa la yidhaahdaa wixii hafyaha hadal kuma jiraan ninka odayga ahna dadka soomaaliyeed qaarna waa yaqaaniin qaarna ma yaqaaniin lambarka shanaad waa xildhibaan waa ganacsade waa wasiir hore waa siyaasi ruug cadday ah mudane doctor maxamed abuukar islaaw ducaale wasiirkii hore ee amniga dalka haddana ah markaana ahay xildhibaan ka tirsan golaha shacabka waa guddoomiyaha ururka haybad qaran soo daadega marka lambarka lixaad mudane doctor guuleed saalax barre guddoomiyaha golaha cadaaladda iyo dimuquraadiyadda dad badan oo soomaaliya waa yaqaaniin dad badanna ma yaqaaniin waa lambarka lixaad lambarka toddobaad baa la yidhi mudane ducaale aadan maxamed guddoomiyaha madasha horu socod qaran isaguna waa nin wadda soomaaliyeed qaarna yaqaaniin qaarna aysan aqoonin lambarka siddeedaad mudane faarax cali shire guddoomiyaha xisbiga israac dadka qaar israac markay maqlaan laba xaafadood oo midna daarusalaam ku taallo midna xamar jajab ku taallo ayaa ku soo dhici doona lambarka sagaalaad meeshaa nin culus oo nin weyn ninka si weyn ah ayaa ku jira mudane taabid cabdi maxamed hogaamiyaha xisbiga awoodda shacabka guddoomiyihii hore ee gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho nin weyn ninka sii weyn lambarka tobanaad haddeeray ka sii daran tahay meesha nin culus siyaasadda soomaalida dhexdeeda miisaan ku leh dad badan marka ay maqlaan ay qalqalayaan oo ay leeyihiin war ninka waa lagu muransanaayo maxagow jiraa halkaanuu soo istaagay dad badan baa caaw dhihi doona meeshaa ninkaasu haddii uu ku jiro guul bay u dhowdahay ama waa guul bay dhihi doonaan soo cad garatay maaha waa nambarka tobanaad oo ugu dambeeya fahad yaasiin xaaji daahir agaasimihii hore ee hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ahayna la taliyihii amniga madaxweynaha qaranka ninkaa odayga ah oo hore ula soo shaqeeyey maxamed cabdulaahi farmaajo maalin cad ay kala tageen waayada dhowaana lalahaay madaxweyne doctor xasan sheekh maxamuud iyo asiga ayaa wada hadal ka dhaxeeya meelo badan loo saadaalinayay odayga waa ka halkaasuu degay caawo saxiixaanuu ku jiraa jamaahiirtaas horta caawa waa isku biireen xisbi loo dhan yahay ayay dhisteen ninka ay dhisanayaan sida la sheegay waa ra'iisul wasaare hore mudane cabdi faarax shirdoon saacid ninkaa odayga ah ayay janjallada ka sidaan oo ay leeyihiin madaxweyne guulayso halkaa marka ay taagan tahay waxaa soo booday siciid cabdulaahi dani
masayrka waxa la yiraahdo ragga kuma habboona dumarku ku roon yahay masayrku waa wax daran oo aad iyo aad u xun tiimkan aad aragtaan ayuu soo saftay asiguna ragga wuxuu abootada ayaan aqaanaa meel biyale ku dhali mayso ragga ugu sarreeya horta ayagana laba nimaan ka aqaana labada ninna laba nimo akhlaaq lama aha laba nimo ixtiraam lama aha waa laba nin oo qayru mas-uuliin ah oo weliba saqajaamiin caadiya ah oo dadka aflagaadeeya oo madaxda caaya oo siyaasad Soomaaliyeed wax natiijo ah wax rajaa aan ka lahayn waa wasiir maxamuud ciidi dirir يا مدح عد وسيرك أريمها جده مجي عيسى وما كره يا جداف أي دي ده يقفك الله لما داس أيان كعقانا بل صور كوا أركتنا وحكى على دكتة خان إلى سو وذاك هذه أنا وما صدقي مغالك يشر جري ومدة صومالية لو ذاك بيج كي أبو أنجر عندور حسين فلو سودا channel كي يوتيوب هرمال ميديا سبسكرايب دعكوا ده جنبنا الكفروس هذا نقطة دعوة ده أقول والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.